Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalka Dajiye. Maxay markaan dhahayn dadka qofka ay doortaan uu noqdo madaxweynaha Mareykanka? Dadka deegaanka ismaamulka Vihiga ee ka tirsan gobolka Indiana Mareykanka waxay leeyihiin wax sidii mucjiso oo kale ah marka laga reebo laba madaxweyne oo la doortay 1908 iyo 1952 tan iyo sanadkii 1888 waxaa doorashada xilka madaxweynaha ku guuleystay qofka ay iyagu codeeyaan. taariikhdaas awgeed, fikirka ay dadka reer Vihiga ka qabaan musharaxiinta u taagan doorashada Mareykanka wuxuu caalamka u iftiimin karaa natiijada ka soo bixi karta doorashada dhacaysa 3 bisha Noofembar. Lamaane lagu kala magacaabo Susan iyo Terry Highhurst oo ah beeraley deegaankaasi ku leh dhul beereed baaxaddiisu dhan tahay 1700 hektar, taasi kama hor istaagin inay safaro ku tagaan caalamka qaybihiisa kala duwan. Waxay tageen Yurub, gabadhooda oo 25 jir ahna waxay ku sugan tahay London oo ay wax ka baranayso. Marka ay timaado dhinaca siyaasadda, Donald Trump ayaa qofka kaliya ee ay doonayaan inay u codeeyaan. Terry wuxuu beerta galay iyo digir uga baxda dhinaca koonfurta bari ee deegaankaas, wuxuuna leeyahay in ka badan 20 neef oo lo' ah. Gobolka Indiana waxa uu hogaaminayaa ganacsiga dhoofinta digirta, kaasoo qiyaastii kala bar ka mid ah loo dhoofiyo dalka Shiinaha. Dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee uu maamulka Trump kula jiro Shiinaha ayaa sababay in Beijing ay ku jawaabto canshuur 133 oo ay sanadkii 2018 ku soo rogtay digirta uga imaata Mareykanka. Laakiin Mr. Highhurst oo ka qalin jebiyay jaamacadda Purdue wuxuu aaminsan yahay in ganacsiga beeraha ee Mareykanka uu sii xoogaystay. Murankii labaad dal wuu khafiifay canshuurta meesha waa laga saaray. Wuxuu fikir ahaan qabaa in madaxweyne Trump uu qabtay shaqo aad u wanaagsan muddo dheer ayuu Mareykanka gacan saar lahaa wadamo ka soo horjeeda wuxuu u sameeyay, laakiin waxay ila tahay in ilaa hadda sida muuqata aan ka marin karno xidhiidh Shiinaha uu yidhi.